Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulanti wacan oo wanaagsan. Halka aad nagala socotaan waa warbaahinta Xorriyadoon online. Akhyaarteena sharafta badan, waxaan hadda soo gaarnay waqtigii aan idin soo gudbin jirnay wararkeenii maanta. Wararkeena maanta waxaynu ku bilaaban doonaa dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa berri hor iman doona baarlamaanka federaalka Itoobiya oo su'aalo kulul weydiin doona ra'iisul wasaaraha. Su'aalahaas oo dhinacyo fara badan taabanaya. Kulankaas berri dhici doona baarlamaanku ay ku weydiin doonaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Su'aalaha kulkulul ayaa bahda saxaafaddu dhammaanteeda isha ku hayaan, ayna u diyaar garoobayaan bilaabana doona saacada kadib waqtigan aan warka baahinayno. Dhammaan saxaafadda ayaa waxay u diyaar garoobaysaa inay hesho su'aalahaas iyo jawaabaha uu ka bixiyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Haddaba waxaa xusid mudan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya isbedel doonka ayaa waxa uu culays adag ka soo wajahayaa qaybaha kala duwan iyo dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda dalka Itoobiya, taas oo ay ugu horeeyaan xoogagii TPLF ee dalkan xukumayay. TPLF ayaa weli ilaa iyo hadda u hanqaltaagaysa mar kale inay kusoo laabtaan xukunka ee dalka Itoobiya. TPLF iyadoo taas ka duuleysa ayaa waxay bilowday hadda siyaasadda inay dhaliilo culus u jeediso xukuumadda EPRDF ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed. Dhinaca kale TPLF waxay hore u lahayd xulufo ballaaran oo dalka Itoobiya ah, haddana ay ku dadaalaysaa inay xulufadaasi sii haysato. Dhinaca kale waxaa ra'iisul wasaaraha culays ka soo wajahayaa qowmiyadda isagu uu ka soo jeedo Oromada oo kala qaybsan laba qaybood. Qaybta garabkiisa waxay ra'iisul wasaaraha isbedel doonka ku dhaliilayaan isbedelka xoogaa xawaarihiisu inuu degdeg badan yahay, oo dhaliisha ay kooxda OPDO ama OPD ee casriga ah iyo guud ahaan qaybaha xukuumaddii hore EPRDF-ta lafteeda xisbi ahaan ay ku dhaliilayaan ra'iisul wasaaraha. Waxaa ka mid ah xayiraadii degdega ahayd ee uu ka qaaday ururada mucaaradka ah iyo inuu ugu baaqay inay ka qayb noqdaan siyaasadda ee dalka Itoobiya iyo doorashooyinka. Gaar ahaan waxay farta ku fiiqayaan EPRDF saraakiishoodu Abiy Ahmed inuu ku khaldamay ciidamada mucaaradka, inuu u ogolaaday dalka inay soo galaan oo siyaasadda ay qayb ka noqdaan ayaga oo aan hubka laga dhigin. taas oo laakiin ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday baarlamaanka hortiisa iyo xisbiga EPRDF-ba inayna dhici doonin koox ka tirsan kooxaha mucaaradka oo aan hubka laga dhigin inay siyaasadda dalka ka qayb qaadato. Taana uu sheegay inayna ogolayn siyaasadda iyo qawaaniinta xisbiga iyo dowladda federaalka Itoobiya. Laakiin marar badan ayaad waxaad moodaa su'aalahaas inay shaki gelayaan. Shakiga horeeyana wuxuu soo baxay labada jabhadood OLF iyo ONLF markii heshiiska ay galeen ee dalka ay ku laabteen ay bilaabeen olole siyaasadeed. Taas ayaa caqabadii horeysayna ay ka bilaabatay kooxda OLF oo iyadu gebi ahaanba gaashaanka ku dhufatay hubka dhigista, isla markaasina ay ugu dambeyntii noqotay inay isku dhacaan OPDO iyo ururkii OLF oo hadda arrintoodu laga dayrinayo. dhinaca kale jabhadda ONLF oo heshiis kula soo gashay dowladda Itoobiya caasimadda dalka Eritrea Asmara ayaa iyada lafteeda ay ku cadaadinayeen xoogaga baarlamaanka iyo dowladda federaalka Itoobiya xisbiga EPRDF ra'iisul wasaaraha inay ka horeyso ONLF inay siyaasadda ka mid noqoto inay hubka dhigto. Lama oga heshiiska ay soo galeen dowladda Itoobiya iyo jabhadda wadaniga xoreynta hogaaminaya ONLF, laakiin waxa uu iska horimaadku ka bilowday iyada oo kooxdii ka tirsanayd EPRDF ay bilaabeen inay arrintaas isha ku hayaan, isla markaasina dowladda federaalka Itoobiya ay rabaan heshiisyada inay iyagu shacabkooda ka dhaadhiciyaan in heshiiskaas ay ka mid ahayd in jabhadda ONLF ay hubka dhigto kadibna ay noqoto xisbi siyaasadeed.
laakiin waxaad moodaa ONLF ayaa taas ka mowqif duwan, inkasta ONLF ay taageertay barnaamijyada ka socda Somali State islamarkaana saaxiib isku dhow yihiin dowladda federaalka Itoobiya hogaamiye ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, ayaa waxay haddana u muuqataa intaasi ayna keenin in laga heshiiyo siyaasadda hubka dhigista oo labadoodaba xasaasiyad ku leh. dhinaca federaalka Itoobiya ra-iisul wasaare waxay ku haystaan kooxaha federaalka haddii ay baarlamaan noqon lahayd xukuumad iyo xisbiga EPRDF ba in aan dhagaha shacabka Itoobiya ayna maqli karin koox aan hubka laga dhigin inay ka mid noqoto siyaasadda dalka Itoobiya. culayskaas uu wajahayo ayaa ra-iisul wasaaruhu mar walba iyo xukuumadda hadda ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo ay mar walba shacabka Itoobiya maqashiinayaan in barnaamijyada hubka dhigistu ay bilaabmeen oo u dambeysay arrintii ama warkii shalay laga sii daayay TV-ga Somali State oo ahaa in barnaamijkii hubka dhigista ee ONLF iyo ONLF inay ka mid noqoto ciidanka deegaanka lasoo afjaray. taas marka ra-iisul wasaaruhu waxa uu kaga cararaya oo kaga fakanaya cadaadiska kaga imanaya dhinacyada kala duwan ee dalka Itoobiya oo ugu weyntahay xisbiga uu kasoo ka tirsan yahay EPRDF. dhinaca kale jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya lafteeda oo iyaduna heshiiskaas oo gashay ayaa culayska labadii uu saaran yahay dadkii ku jiray halgankii 34 sano ayaa iyaga laftoodu waxay u qaltaagayaan ONLF inay si dhib yar ku tanaasushay waxyaalo badan waqti kooban. dadkaas oo mar walba marka ka dambaysa soo kordhaya ayaa mar keliya waxaa xamaasad ka dhalatay shalay markii ay haddana maqleen in barnaamijkii hubka dhigista iyo barnaamijkii inay ONLF ka mid noqoto ciidamada deegaanka lasoo gabagabeynayo. dadka ONLF taageersan waxay u qaybsameen laba qaybood. qayb waa qaybta muxaafidka ONLF ee daacadda ah aan odhan karno halgankana boqolkiiba boqol daacadda oo kooxdaas waxay qaateen go-aan ah ONLF go-aan kastay qaadato waa sax waana ku taageeraynaa. laakiin waxaa jira kooxo halkaa ka hooseeya oo iyagu wejiyo badana kooxaha ugu fiican laakiin waxay aaminsan yihiin in taxadar la sameeyo hubkan aan la dhigin. dadkaas oo jabhaddu ay jeceshahay inay laftooda qulubtooda ilaaliso kana mida bulsho weynta caadiga ah. taas marka jabhadda waxay ku kaliftay iyaduna inay maanta war saxaafadeed soo saarto oo ay meesha ka saarto inaan gebi ahaanba heshiiskii ku jirin wax la yidhaahdo hubka dhigis. taasoo aad moodo inay saasax ku tahay waayo heshiiskii dhex maray ONLF iyo dowladda Itoobiya qodobadiisa inta dadku ogyahay laguma darin barnaamij hubka dhigisa, laakiin ka mid bay ahayd in ciidamada ONLF ay ku biiraan ciidamada deegaanka Soomaalida. haddaba arrintaas ayaa hadallo la isku dhaafsaday maanta haddaba ayaa su-aalaha la weydiin doono ra-iisul wasaaraha ay rajeynayaan saxafiyiinta iyo dadka siyaasadda indhaindheeya inay su-aalaha ka mid noqon doonto arrimaha hubka dhigista iyo jabhadihii cafiska loo fidiyey islamarkaasina loo ogolaaday inay ka mid noqdaan siyaasadda dalka Itoobiya iyo su-aalo kale ayay weydiin doonaan. wixii warar ka soo kordhana waxaad kala socon doontaan warbaahinteena Xorriyadda online. dhinaca kale wararkeena waxaa ka mid ah dowladda dalka Itoobiya afhayeenka komishinka tirakoobka oo hadlay ayaa wuxuu sheegay tirakoobkii dalka Itoobiya ee dhowr jeer dib u dhacay in la qaban doono bisha Abriil 7 oo ku beegan maalin Axad. afhayeenka oo hadashay komishinka tirakoobka dadka iyo guryaha waxay sheegtay tirakoobkaas in diyaar garowgiisii la bilaabay lana diyaariyay kharashkiisii iyo shaqaalihii tababarkiina dhowaan la bilaabi doono islamarkaasina ay guud ahaan dalka hal maalin ay ka dhici doonto tirakoobka dadka iyo guryaha ee dalka Itoobiya ku beegan 7 bisha Abriil. dhinaca kale wararka naga soo gaaraya gobolka Oromada ayaa waxay sheegayaan in xabad joojintii u dhaxaysay dowladda federaalka Itoobiya iyo ururka fallaagada ONLF aad moodo in mar walba ay khatar ku sugan tahay oo jabtay. dagaal ayaa maanta laga soo sheegaya inuu ka dhacay deegaanada Oromada ku dhex maray dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda ONLF. dagaalkaas oo la sheegay inuu ahaa dagaal khadhaadh ayaa waxaa la sheegayaa khasaare dhimasho iyo dhaawacba ahi inay jirto. dhinaca kale deegaanka Soomaalida waxaa weli aan xal loo helin amaba weli aan imanin caasimadda Somali State. madaxweynihii maamulka Somali State iyo gudoomiyaha xisbiga la filay howlihii heshiiskii Addis Ababa uu dhex dhigay prime ministerka dalka Itoobiya in uu hirgalo oo uu sii shaqeeyo. wararka ayaa waxay sheegayaan ilaa hadda inaanu iman madaxweynaha maamulka Somali State mudane Mustafa Maxamed Cumar
oo booqasho dheer oo kulano badan uu la sameynayay la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan Soomaalida iyo dalka Kenya. laakiin waxaa la rajeynayaa madaxweyne Mustafa markay howlahaasi soo dhamaadaan inuu soo laaban doono. Axmed Shide ayaa waxaad moodaa isaga laftiisu inuu eeganayo imaatinka madaxweyne Mustafa. lama oga arrintaas waxa ay ku dhammaan doonto, inkastoo warar kala duwan ayba ka soo baxayaan oo aynu warbaahinteena idinku soo gudbin doono wixii warar ah ee ka soo kordha arrimahaas. dhinaca kale dalka Soomaaliya wararka naga soo gaadhay ayaa waxay sheegayaan in taliska AMISOM uu la wareegay taliye cusub oo kasoo jeeda dalka Ethiopia. generaalkan cusub ayaa maanta la wareegay xilka ee taliska AMISOM, kaasoo noqon doona taliye kasoo jeeda dalka Ethiopia. wararkaas iyo wixii kale warar ka soo kordha waxaad kala socon doontaan warbaahinta Xorriyadoon online. ku xidhno oo halkaaga joogtada ka dhigo Xorriyadoon online.